maamulkaaga ciidan ma leeyahay والله أنا مملكي شبيلي وبدني مملكي ممل عيدا ناس أود بدن ملها adiga ciidan kuwaadiyay ما يعني شعب كي وردين الشعب يلو صدرتي أنا هاي شعب كي وردين dadku ma ku ogeyna madaxweynaha galda waxta عادي maxay ku yiraahdaan waxay dhahan wax qabad iyo waxay suuyaan in horumar iyo deegaanka wax barasho lagu soo kordhiyo idana wax barasho badan iyo iskuulaha hadda ka furan waxyaabo badan u dhimanna oo jiraan u hirgelin waxyaabo markaas sabab jira badan oo jiran ay u dheeliyay dawladdii kumeel gaarka ahayd oo Sheekh Shariif Sheekh Axmed markay jirtay ayaa wax badan oo deegaanka kamida oo dadku ay cabsiyaal ka muujinayaan una baahan in lagu dhiirto ayaan markaas keenay u dhaliyay markaas ay jirtana baahi jirta markaas deegaanka jirta maadii tuulooyinku loo sameeyay magaalada ay horumar sameynayso caasimada maxaa tiraday galmudug ay horumar sameeynaysa markaasna aan galmudug loo aqoon maamulka loo leeyahay tiici la yaqaan oo ximini xab laakiin culimada al-sunna wal jamaa oo wadanka ka arimi jiray markaan ay madaxweynaha galda bare galmudug state sheegto meesha aad isku magacaawday oo tiri waxaan ahay madaxweynaha maamulka galda bare deegaankaas oo magaca aad u qaadato maamulkaaga xagoo qurxan ka xiga maamulkiisa aad ogtaaba gal dabare galgudug state marka leeyahay waxa waaye state intuu ka kooban yahay waa macna eray ahaan eray bixin state intuu ka kooban yahay marka waxay hoos tagtaa gal dabare waxa hoos taga magaalada Cusley mid leeyahay galgudug mid leeyahay tuulo kale oo leeyahay maxaa tir dooyaale dhagaxyaale ilaa waradhuumale ilaa maxaa tiraday Albuur inta soo ma hoos tagtaa marka waa deegaan caalamiya oo dadka deegaanka ahmiyad gaar u leh hasa aatay waxa waaye deegaan dad beeraley degan yihiin dad xoolo dhaqataa marka satartid meesha dad badan oo ganacsiyaal ah oo deegaanka u dhashay ayaa waxay ka hirgeliyeen airport iyo horumar ka socdo hadda waad fahamtay waad markii doona insha Allah hadii la yiraahdo galdabar ugu doona sanad dugsiyeedkan ciyaalka 8 ayaa ka baxay 8 arday oo dugsi sare ka baxay sanadkan waxaan ka rabaa meeqa sanad madaxweynaha ayadu anu ilaa dawladda ku meel gaarka ilaa adiga waxaan ku 12 sano 12 sanadeed aan madaxweyne ka ah meel kala duwan booqatay oo maamulka ka baxsan ma jirtaa oo dawladda kale Soomaaliya ha noqoto hadeerto ha noqoto dibadda ma jirtaa wallahi meel badan aan booqday deegaamo badan oo waxaan booqday oo xogaa colaad ka jirto hiiraan ka mid yihiin oo waagi xilliga uu jiray Sheekh Mashaakir Cali Xasan oo madaxweynaha ka ahay gobolada dhexe oo ka arriminay meel badan aan booqday inkastoo hadda waagaas hadda nabadgelyada ka jirtay deegaanka iyo hadda nabadgelyada ka jirtay faqri badan dhaxayso marka si badan oo markaas deegaankaas waagaas colaad ay ka bilowdeen oo booqday dadka isdibishiisay badan dhax dhignay dadka shacabka weyn ay qaateen oo colaad ay badan soo noqday xilligaas ay jireen haddana deegaanku waa nabadiysan yahay waxa dhib hadda kama jiraan xogaa kastoo yaro waa fahmi kartaa nimankan ayaga ah cariiri ku hayo maamulkaaga ciidan ma leeyahay والله أنا مملكي شبيلي وبدني مملكي ممل عيدا ناس أود بدن ملها adiga ciidan kuwaadiyay ما يعني شعب كي وردين الشعب يلو صدرتي أنا هاي شعب كي وردين dadku ma ku ogeyna madaxweynaha galda waxta عادي maxay ku yiraahdaan waxay dhahan wax qabad iyo waxay suuyaan in horumar iyo deegaanka wax barasho lagu soo kordhiyo idana wax barasho badan iyo iskuulaha hadda ka furan waxyaabo badan u dhimanna oo jiraan u hirgelin maxaad marka fariin aad dir lahayd dadka deegaanka soo jeeda gal dabare galgudud state waxaan ugu baaqaynaa in dadkooda dibadaha jooga jaaliduhu inay soo taageeraan taageero caalamiya mid bini'aadanimo ay siiyaan dadku meesha ay ku horumaraan oo aqliga iyo waxbarashada waa si aqligana loo horumariyo waxbarashadana loo horumarsho magaca aad qaadatay ee gal dabare qurceel tuulo hoos tagta waa sida la sheegay meeqa kiiloomitir u jirtaa 20 iyo 8 kiiloomitir